waxaa dhagaha dadka reer Dhadhaab iyo nawaaxigeeda weli ka sii dhawaaqaya masiibadii ka dhacday suuqa weyn ee xarada qaxootiga ee Dhagaxley. Masiibadaasi oo ayna weli ka soo kaban ganacsatadii Dhagaxley ayaa masiibo kale oo aanan u dhicin sidii la filayay saaka ka dhacday suuqa Xagardheer. Abaarihii saaka 10kii subaxnimo ayaa waxa uu dab qabsaday suuqa Xagardheer qaybta xigta Kalabeerka E1 iyo E1. Dabka ayaa waxa uu ka bilowday goob ganacsi yaryar oo u dhow warshada barafka ee Midnimo. Muuqaalka dabka oo meel fog laga arkayay ayaa shacabku waxa ay saadaalinayeen in uu dabka ka kacay warshada barafka, laakiin milkiilayaasha warshada ayaa waxa ay sheegeen in aanu dabka gaarin warshada oo ay waqtigaasi dansaneed. Dabka ka kacay suuqa Xagardheer ayaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan Xagardheer cabsi iyo naxdin ku abuuray, maadaama suuqa Xagardheer uu yahay suuqa ugu weyn dhammaan xerooyinka qaxootiga. Gurmad xoogan oo ay sameeyeen dadweynaha ayaa lagu guuleystay in la damiyo dabkaasi. Maxamed Ciise on Cable TV.